السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalaca News Channel. Daawadayaal meel kasta joogtiin kulan wanaagsan. Intaan waxaan ku soo qaadanaynaa wararka dhacdooyinka la yaabka leh. Xubintan soo qaadanayno waxay ku saabsan tahay nin xaaskiisa timaha ka xiiray. Waa maxay sababta? Nin u dhashay dalka Bangladesh oo 35 jir ah ayaa la soo wariyay inuu shalay timaha ka xiiray xaaskiisa kana dhigay euro billionaire oo kale. warbaahin dalkaasi kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka ee dalka Bangladesh ayaa sheegay inuu shilkaasi hoosta ka xariiqayo qataraha tacadiyada ee sii kordhaya loo geysto haweenka ku nool dalkaasi. hadalka soo wax boolisku waxay sheegeen inay shalay soo xireen nin ku tacadiyay xaaskiisa kaasi oo la sheegay inuu iyada timaha ka xiiray kadib markii uu tin ku arkay quraacdii shalay ay u diyaarisay. boolisku waxay sheegeen in eedeysanaha oo lagu magacaabo Babilu Mondal ka soo qabteen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee deegaanka Jobuharat. sarkaal ka tirsan booliska deegaanka oo lagu magacaabo Shahriyar Khan oo la hadlo kala doorarka AFP ayaa sheegay inay howlgalkaasi qaadeen kadib markii dadka tuulada ku soo wargeliyeen booliska dhacdadaas foosho xun leh. sarkaalku wuxuu intaa ku daray in eedeysanaha uu ku dooday inuu tin bini'aadam ka helay bariiskii caanihii quraac ahaan loogu keenay ay xaaskiisa u soo diyaarisay. eedeysanaha ayaa la sheegay inuu ka carooday tinta uu ku arkay cuntada kadib waxa uu soo qaatay sakiin oo si qasab ah timaha ugu xiray madaxa xaaskiisa oo 3 jir ahayd. eedeysanahaasi ku tacadiyay xaaskiisa ayaa la sheegay inuu muteysan doono xabsi celcelis ahaan dhan 14 sano. dhinaca kale hay'adda Bangladesh ee u dooda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaano Ayn oo Salish Kendara ayaa sheegtay inay sii kordhayaan tacadiyada loo geysto haweenka iyadoo 630 haween la kufsaday muddadii u dhaxaysay bilihii Janaayo iyo Juun ee sanadkan, iyadoo 37 haween kalena la dilay halka 7 kalena ay iyagu isgubeen ama isdileen kadib markii la kufsaday. bishii Abriil soo dhaafay dalka Bangladesh waxaa ka dhacday dibadbaxyo balaaran kadib markii arday 19 jir ah ay nolosha isku gubtay kadib markii uu macalinkeeda ku amray inuu si qasab ah ugu galmoodo. daawadayaal xubinteennii la yaabka waa naginta waxaad kala socoteen Daalaca News Channel waana ku mahadsantihiin daawashadiina.